waan idin salaamo dhammaan saaxiibada ku xiran janaalkeena aad ayaan idinkaga mahadcelinaa sida wanaagsan aad ula socotaan muuqaaladan bartan soo dhigo soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan rabaa inaan idinla wadaago xog aan kaga hadli doono Salmaan Khan iyo todobadiisa filim ee ugu sheekada xun dhammaan aflaamta uu sameeyay haddaba waa kuwii todobadaasi filim xogtaas ayaan idinla wadaagi doonaa balse intaan u guda galin muuqaalkayga waxaan ka codsanayaa inaad janaalku soo birto subscribe saarto haddii uu muuqaalku cajab geliyo like inoo saar wixii ayaad qabto commentiga hoos inoogu reeb sii share gareeyo labadaga asxaabtaada soo dhawaada saaxiibayaal Megastar Salmaan Khan waa mid ka mid ah aktarada ugu awoodda badan ee Hindiya soo mara khaasatan kuwa Bollywood-ka markaan eegno jilaagani taariikhdiisa oo kooban Salmaan Khan waxa uu dhashay 27 December sanadii 1965 da'diisu waxa weeyaan 56 jir ama 56 sano ayuu jiraa jilaagani markaan eegno Salmaan Khan aabihi waxa lagu magacaabaa Salim Khan halka hooyadii lagu magacaabo Sushila Jarak jilaagan waxaa la san jilayaal dhowr ah uu ka mid yahay Suheel Khan iyo Arbaaz Khan saaxiibayaal Salmaan Khan wuxuu fanka Hindiga ku soo biiray horaantii 80-meedii ama sanadii 1988 filimkiisa ugu horreeyay waxaa lagu magacaabaa Babi Ho To Aisa waxaana la daawaday sanadii 1988 walow uu noqday filim follow up saaxiibayaal markaan eegno jilaagani Salmaan Khan waxa weeyaan waxa ka mid yahay aktarada Hindiga lagu jecel markaan waxaan eegi doonaa Salmaan Khan iyo todobadiisa filim ee ugu sheekada xun markay timaado aflaamta uu sameeyay taariikhda saaxiibayaal filimka ugu horreeya aan ku bilaabi doono waa filimka lagu magacaabo Sooryafanshi inkastoo magacaani oo aflaan badan lagu sameeyay oo Salmaan Khan oo kale ee aan dhahay jilaagii Akshay Kumar oo sanadkii hadda soo dhaafay kale Sooryafanshi film magacaasi wato uu sameeyay haddana cali dheerana lagu xasuusto filimkiisa Sooryafanshi ama laba cali dheere ama ninkii ahaa jeestolana film lagu magacaabo Sooryafanshi ayuu asaguna sameeyay horaantii qarniga 12aad marka filimkani Sooryafanshi waxa weeyaan waa mid ka mid ah aflaamta uu sameeyay Salmaan Khan sidoo kale waa mid ka mid ah aflaamta ugu sheekada xun ee uu sameeyay jilaaga caanka ah Salmaan Khan filimkani waxaa la daawaday markaan eegno 14 February sanadii 1992 waxaa qayb kala ahaayeen jilaayaal ay ka mid tahay Amrita Sin sidoo kale tiishadii 9-meedii caanka ahayd ee Sheba gabadha lagu magacaabo saaxiibayaal natiijaansa waxa uu noqday filim follow up ah filimka labaad ee sheekadan taabanaysa waa filimka lagu magacaabo London Dream filimkan London Dream la yiraahdo waxa uu ka mid yahay aflaamta ugu xumaawid uu sameeyay jilaaga caanka ah Salmaan Khan waxa ku heliyaan ama filimkan markaan eegno waxa uu soo baxay 3 October sanadii 1900 ama sanadii 2009 Salmaan Khan filimkan waxa ku heliyaan jilaayaal uu ka mid yahay Ajay Devgan gabar lagu magacaabo Asin iyo jilaaga caanka ah Aditya Roy Kapoor markaan eegno filimkani waxa uu soo baxay saaxiibada ugu sheegay 3 October sanadii 2009 natiijaansa waxa uu noqday filim follow up ama filim guuldareysa saaxiibayaal sheekadan filimka saddexaad ee taabanayso waa filimka lagu magacaabo Kiyunku ama Kiyunki filim lagu magacaabo filimkani waxa uu soo baxay markaan eegno 3 November sanadii 2005 waxaana hogaamiyaalka wada ahayn jilaayaasha kale ah Salmaan Khan Jackie Sharif Kareena Kapoor Sunil Shetty Rema Sin iyo Om Puri ninka lagu magacaabi jiray maqaan waxa taqaanaba filimkani Kiyunki waxa uu ka mid yahay aflaamta ugu xumaawid uu sameeyay jilaaga caanka Salmaan Khan natiijaansa waxa uu noqday filim follow up saaxiibayaal sheekadan filimka taabanaysa sheekadan filimka xigta ee taabanaysa waa filim lagu magacaabo Jandramuqi asigana waxa uu ka mid yahay aflaamta ugu xumaawid uu sameeyay jilaaga caanka ah Salmaan Khan markaan eegno filimkan waxa uu soo baxay 22 October sanadii 1993 filimkan waxa hogaamiyaalka wada ahayn Saradevi Salmaan Khan Baran Golden Grover iyo Mohan Shbal ama naag wuxuu uga hadlo taqaan sidoo kale waxa filimkan ka soo muuqday Tinu Anand saaxiibayaal natiijaansa waxa uu noqday filim follow up ama filim guuldareystay waana mid ka mid ah aflaamta ugu xumaayay uu sameeyay jilaaga caanka ah Salmaan Khan sheekadani filimka xigta ee taabanayso ama filimka xiga waxa weeyaan filimka lagu magacaabo Hello Brother waa mid ka mid ah aflaamta ee aad u jecel yihiin Soomaalidu markay timaado dadweynaha xilligii shaleemooyinka daawan jireen filimkani waxa uu soo baxay horaantii ama dhamaadkii 9-meedii ama 10 September sanadii 1999 filimkani waxa hogaamiyaalka madaxayeen Salmaan Khan walaalkiisa Arbaaz Khan Rani Mukhraji ninka lagu magacaabo Raza Khan ama qodhan waxa taqaan Johnny Lever Neeraj Vori iyo sidoo kale nin lagu magacaabo Zulfa Arya saaxiibayaal ama aan dhahay haweeney lagu magacaabo Zulfa Arya oo ku jishay Rani Mukhraji hooyada saaxiibayaal filimkani waxa uu ka mid yahay aflaamta comedy-ga markay timaado aadka u shactarada badan uu sameeyay jilaaga caanka ah Salmaan Khan
filimkani waxa uu ka mid yahay sidoo kale aflaamtii ugu xumaa abid ee sameysay gabadha lagu magacaabo Rani Mukherjee. Hadda ka hor wareysi ku bixisay ama wareysi ay bixisay ayayna ku sheegtay in filimkan Hello Brother uu ka mid yahay aflaamtii ugu xumaa abid taariikhda aflaamtii ay sameysay gabadha lagu magacaabo Rani Mukherjee. Natiijadaas waxa uu noqday filimkani filim flop ah ama filim guuldareysa saaxiibayaal markay timaado Soomaalidu aad ay u jecel yihiin daawashada filimkani lagu magacaabo Hello Brother. sheekadani filimka xigtay taabanaysa waa filimka lagu magacaabo Duplicate. filimkan Duplicate wuxuu ka mid yahay sidoo kale aflaamtii ugu xumaa abid uu sameeyay jilaaga caanka ah Salman Khan. filimkan waxa uu soo baxay markaan eegno 23 Juun sanadii 2017 waxaana hogaamiyaalka wada ahaayeen Salman Khan, walaalkiis Suhail Khan, waxaa kaloo ka soo muuqda Om Puri, Mohammad Zajan Ayub, Yash Bal Sharma, Shushu iyo jilaayaal kale saaxiibayaal. markaan eegno filimkani waxa uu ka mid yahay sigana sida hore ugu sheegay aflaamtii ugu xumaa abid taariikhda jilaaga Salman Khan aflaamtii uu sameeyay. natiijadaas waxa uu noqday sidoo kale filimkani filim flop ah ama filim guuldareysa saaxiibayaal. sheekadan filimka ugu dambeeya ee taabanaysa waa filimka lagu magacaabo Saawariya walow uu yahay filimkii lagu soo caanbixiyay jilaayaasha kale Ranbir Kapoor iyo sidoo kale Sonam Kapoor gabadha lagu magacaabo waa gabadha uu dhalay Anil Kapoor. haddana filimkani waxaa kaalin weyn ka qaatay jilaaga caanka ah Salman Khan. markaan eegno filimkani waxa uu soo baxay bartamihii ama aan dhehe waxa uu soo baxay 9 November sanadii 2007 waxaana hogaamiyaalka wada ahaayeen jilaayaal ay ka mid yihiin Ranbir Kapoor, Sonam Kapoor, Rani Mukherjee, Salman Khan, Sora Zegal iyo sidoo kale jilaayaal kale. markaan eegno filimkani natiijaan asigana waxa uu noqday filim disaster ah ama filim burburay. inkastoo aflaamta kale aan ka soo hadlaynay ay noqdeen flop, haddana filimkani waxa uu noqday mid ka mid ah aflaamtii Salman Khan uu sameeyay natiijadiisu ay gaadho disaster ama noqdo filim burburay saaxiibayaal. filimkani sanadaasi 2007 waxaa isku dhac weyn uu kala kulmay filimka lagu magacaabo Om Shanti Om ka uu hogaamiyaha ka ahaa ninka lagu magacaabo Shah Rukh Khan. walow filimkaas oo noqday filim blockbuster ama filimkii ugu weynaa ee 2007 soo baxay, laakiin nasiib xumo filimkan Saawariya waxa uu noqday filim disaster ah ama filim burburay saaxiibayaal. todobadaas filim ay ahaayeen Salman Khan todobadiisa filim ee abid ugu xumaa taariikhda markay timaado aflaamtii uu sameeyay Salman Khan. walow ay jiraan aflaam badan uu noqday ama ay noqdeen natiijooyinkooda flop kuwa oo laga xusi karo aflaam ay ka mid yihiin filimkii Dil Tera Aashiq iyo sidoo kale aflaam kale uu ka mid yahay filimka caanka ah Qurbaan oo horaantii 9-meeyadii soo baxay. sidoo kale aflaamta kale ee guuldareysta ama flopkana waxaa ka mid ah filimkii caanka ah Qaamoshi ayaa ka mid ah saaxiibayaal iyo aflaam kale. laakiin todobadan filim waxaa la sheegay inay yihiin todobadii filim ee abid ugu xumaa taariikhda markay timaado aflaamtii uu sameeyay jilaaga caanka ah Salman Khan. jilaagan Salman Khan dhowr maalin ka hor waxa uu ku guuleystay abaalmarin ay bixiso ama la siiyay abaalmarin qaali ah ay bixiso dowladda Sacuudi Carabiya taa oo lagu sheego ama lagu magac daray Joy Award. abaalmarintan ayaana la siiyaa dadka ama shakhsiga uu saameynta badan sanadaasi ama sanadkii tagay dowladda Sacuudi Carabiya ayaana bixiso. Salman Khan ayaana la siiyay abaalmarintani oo sida marka loo dhigay magaceeda sida kale la dhigi karo Personality of the Year ama Personality of the Year sanadii 2021 ayayna ahayd shakhsiga ugu saameynta badnaa. jilaagan ayaana la siiyay maalin ka hor waxaana lagu siiyay gudaha Sacuudi Carabiya ama dalkaasi boqortooyada Sacuudi Carabiya. Salman Khan waxa uu ka mid yahay aktarada ugu guulaha badan ee taariikhda soo maray fanka Hindiya khaasatan Bollywoodka saaxiibayaal. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xogtii aan kaga hadlaynay todobada film ee abid ugu xumaa taariikhda aflaamtii uu sameeyay jilaaga caanka Salman Khan. fadlan haddii aad ka hesho muuqaalka like inoo saar janaalka intaad ku cusubtahay subscribe inoo saar wixii aad qabto commentiga soo noogu rabsii share gareeyo la wadaag asxaabtaada waan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena.